sanad guuradii koowaad ee xarunta hubinta caafimaadka shaqaalaha iyo badqabka goobaha shaqada OSHA ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xaruntan oo shaqadeedu tahay adeega hubinta caafimaadka shaqaalaha Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga iyo badqabka goobaha shaqada iyo horumarinta nidaamka kormeerka badqabka caafimaadka shaqaalaha iyo goobaha shaqada iyo agabkooda. waxaana maalgeliyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya taas oo iska kaashadeen shirkadda Hope Labs Group. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimaha shirkadda Hope Labs Group Dr. Cabduladiif Xuseen waxa uuna ka hadlay waxyaabaha ay qabato. maanta waxay ahayd sanad guurada kadib markii la daahfuray sanad ka hor maanta oo kale sanadkii hore xilligaas oo ku aadanayd 2021 maanta ay u tahay xaruntan OSH. xaruntan waxay qabataa adeegyo kala duwan. adeegaas ay maartay ay isla qabanayaan ayadii wasaaradda. adeegyadaas waxaa ka mid ah hubinta caafimaadka shaqaalaha kuwa maartay ajnabiga ah inay maartay caafimaadkooda ka helaan. sidoo kale waxaa ka mid ah kuwa maartay isha ilaa kuma darnaaday ay rabo inay adeeg caafimaad helaan oo ay maartay isha si ay uga faa'iideystaan si qaab kale oo insurance camal ah. sidoo kale waxa ay ka heli doonaan shirkadaha inay helaan hubinta caafimaadka shaqaalahooda. sidoo kale shirkadaha waxay ka faa'iideysan doonaan in shaqaalahooda lagu train gareeyo iyo sidoo kale lagu hubiyo siday ugu diyaarsan yihiin inay maartay goobooda yihiin goobo badqaba oo safe ah. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaam ayaa bogaadiyay hawlaha ay qabato xarunta. waxaan ku bogaadinaynaa shirkadda Hope iyo maartay wasaaradda shaqada iyo shaqaaluntii oo hawl badan galiyay oo dadaal badan galiyay in barnaamijkan hirgalo. soo dhaweynaa insha Allah taala waan u ducaynaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala barnaamijka ka dhiman in maartay dhamaystiro. ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabada wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada Durraan Axmed Faarax iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Cabdiwahaab Ugaas Khalifa. marka runtii waa waxaan aad ugu dardargelinayna ka dowladda waan kaga mahad celinaynaa. shaqadaas waan jecelnahay inay hadii la yiraahdo saacad inay sii ballaartaan goobo badan oo noocaana inay dalka ka jiraan meel kasta oo shaqaale joogana in loo soo la ilaaliyo shuruucda ay leedahay iyo waxyaabaha u baahan qofka safety-giisa ama badqabkiisa iyo caafimaadkiisaba in la wada dhowro. waan bogaadinayaa waxaan isleeyahay laba nooc baan u qaybinaynaa. mid waa gudaha iyo shaqaalihi oo xarumahooda ay sidan yihiin oo iman karaan. meelaha ugu badan ee la isgaarsiiyo cudurrada ay ka imaan ka faafaana waa inta badan meelaha airport lagu soo dhaweeyay digida diyaarada oo kale oo intaas oo qof oo ama ajnabi ama iman shaqaalihiina imaanayaan. taana waxaan rajaynayaa wasiirku sida uu sheegay xarumahan aan furnay xarumo lamid ah inaan ka helno waan codsanaynaa airportka naftigiisu si badqabka shaqaalaha loo ilaaliyo dadka noo imaanaya naftooda kontroolo inay cudurrada leeyihiin in kale maxaa yeelay qofka lama siin karo warqadda ruqsada wasaaraddu ma siin karto haddaan la hubinin badqabkiisa iyo caafimaadkiisa. taasna runtii waan bogaadinayaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. waxaan kaloo aad aan u ammaanayaa Cabduladiif oo runtii ah maskaxdii inta badan ka dambeysay oo runtii la'aantii ayna arrintan noo hirgasheen. waxaan aad ugu faraxsanahay oo warbixinta hadda ka mid ahayd xataa mustaqbalka inaan gaari doono shaqaaluhu inay helaan kaarar free oo markay caafimaad aadayaan oo kale in kabaniga iyo wasaaradda wada shaqayn iskaashanayaan inay heli karaan baan rajaynaynaa. aad iyo aad baan bogaadinayaa waanan runtii ku faraxsanahay. waana sanad guuradii koowaad waxaan ilaahay ka rajaynayaa tanteeda kale iyadoo meesha hadda aan taaganahay aan ka fogaanay oo wixii aan ka shaqaynaynay ay noqdo wax loo aayo wixii naga dhiman ay noo dhamaystiraan inuu ilaahay noo saalaan rajaynaynaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin mar labaad. Sucaad Cabdicasiis Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho.